لبس سنة سيادة سداس بس ده بالبنار ريحة وحلا وحوي كفاية وان كل انتي أنا قم بريس كبدت كلامنا cabashada haweenkan ayaa daaranay sida ay sheegeen dawladda hoose ee magaalada Hargeysa oo ballan qaaday inay siinayso dhul ay degaan maadaama ay yihiin dad dan yar oo aan haysan meel ay degaan waxaanay sheegeen cabashadooda ay u gudbiyeen dawladda hoose isla markaasina ay sheegteen in aqbashay cabashadooda si dhulna ay siin doonto balse arrintaas ay noqotay hal bacaad lagu lusay oo muddo ka badan 2 sano cabashadooda iyo sidoo kale ku noqnoqodkooda dawladda hoose uu socday isla markaasina ilaa hadda aanay haysan meel ay degaan wax taakulo iyo gargaaran aanay ka helin xarumaha dawladda maayirka magaalada ayaan anagoo dad masaakiin oo dan yara ayaama maxay toolay kaararkan la siiyay hadii la siiyay meeshii dantii guud waa laga jaray 2 sano weeyaan 2 sano maanu sanada garan maayo waa la soo tusay gudideedii baa la soo tusay hadii la geyn lahaana maalinban ballan baan loo qabanayay maanta ayuu nin buu noogu daraadno la ballamay khalad bilicda la yiraahdo ninkii khalad bilicdu wuxuu yiri wax aliya waxaan diyahay ma jirto anu bilicdaan heer dhulka shaqo ku melihin niman waalwaalan bay noo direen aniga meel bay iga soo turan misigtan iyo dhinacana ay xanuunaya askartay dadka ku diraan waxaan ku ciil bay nagu garooriyeen maanta saar runtii bay noo sheegay xalli waxaan maayirkaas idin haya ma jirto kadinka ka baxabaalay marka ma dhul aad leedin baaday waa dhul tan yar oo laga guuday dan guud oo magaalo Jimcaale agtiisa oo dadkiina la soo tusay masaakiintii baanu nahay 600 oo qof baanu nahay marka ma dawladda dhulka inay tiroonaysan maayirka geeyay gudida ha kadibna waa imkan ma hayno waxaan diyahaynaa ma jirto nin buu nagu bedelay ninkii wuxuu aanu bilicda guud baan khadar baa leeyahay khadar bilicda wuxuu yiri shaqo kuma liye aanu bilicdaan ahay waxna idiima hayo meeshana waxa idiima yaalaan dubiyaan la idinku arkay marka hore inuu xaga ka soo gurteen anagu waxaan dad maxay tolayeen dan yarta oo maxay tolay dad la degan kiroolayaal nooc walba waan waay sanad ayaad bilaa dhul hayda daaciidan wax leeg Hargeysa la yimid oo bilaa dhulkaas aan waay marka maxaa madaxtooyada imkan hor keenay dawladda oo soo waxa naga soo oriyay nin khadar bilicda la yiraahdo yiri waxba soo taakaydi ma hayo ha meelaha cadaaladda sida wasaaradda cadaaladda iyo meelaha ma tagta madaxtooyada ma garanayna dad waxaan nahay waxba garanay maanta goorta maan soo dhaqaaqin anagu qoysaska markaa imka dhul la'aanta ka cabanay waa ilaa intee lag 600 baa horta kaararkan lagu siiyay ha waxaan ka cabanaa maayirka caasimadda Hargeysa ayaa noo haragjiiday muddo imika 4 sano ka badanba waxaanu leeyahay 600 oo qoysna waanu nahay 5 qof oo gudiyaanu ahayn 5 kale ayaa lagu kordhiyay gudideedii baa la kaxeeyay xildhibaanadu ninka leeyahay Mimnaada Weerax ninka leeyahay Jixo gudidii baa la kaxeeyay meesha waa la soo tusay waa la taqbalsiiyay waa la jarjaray baa la yiri wax kaadu gudiya la jarjarana maanu arkin walina cabashadeedii maalin wal markaan maadno berito haddaan ormo uu noo hanjabay dad waa ma nagu dirayaa askartii waxaan ku dhul soo daadafeenaya waana la soo eriyaa markaan meesha tagna waxaan leeyahay waxbaan idima hayno inkastoo haweenkani tabashada qaba aan isku xaafad ka iman haddana waxa kulmisay cabashada iyo ku noqnoqoshada xarunta dawladda hoose ee Hargeysa waxaana iskugu jiraan dad tabashadu socotay 5 sano iyo kuwa ay socotay 2 ilaa 3 sano oo xiriira ka cabanaya waxa weeyaan anigu maxaan leeymana shaqeeyo mana shaqeysto buul yar oo halka gulucda ku jira maayo kiro shaxaad ku bixin jiray waan iska bixin kari waay dhakhtarka dhabarkiisa halka muuqatan ayaan dhigtay rabadaantii saddexaad alaabta la dhiga roob saqdhaxay halka igu hayay macaalaabtaydii maanta cabashadiina maxay tahay waaniga ku sheegay dhagayso qofba meel buu ka yimaamay lamaan wada socon ayaa dabatana waxa igu soo baxay gudoomiyaha maxaan arrimaha gudaha Cabdullaahi Gaxnuug keel laga bedelay maka rabadaantii saddexaad ma garanaysaa halkaas igu soo baydho igu soo luxiyo alaabtu meeshii iga raro halkaan ku geeya waxaan haafadaan garanayo halkaas ay dul dhig waayahay waxoogaa kharashiisa iyo xudhayaa ma biishabaarihi bay ahayd wuxuu yidhi igu soo noqo arrimaha gudaha igu kaale wuxuu ii gudbiyay maayirka markuu ii gudbiyo yidhi islaantaa waxna tar meelay degtana sidii baanu balanbalayaa kaarkaas ii siiyey maxaan dad sidaa ugu faraqayo kaadhar siinayo ayuu igu dhex daray waxna muu tarin kale maxaan sidii baanu balanbalayaa bil buu riixa wuxuu yidhi soo noqo intaad maxaan lambarkaasaan kaa soo garaacaya marka wax la rarayo 2 sannadood iyo siyaadaan sidaas basida dhanka kale waxaanu isku daynay inaan wax ka weydiino cabashada dadkan ay qabaan waxyaabaha ay u qabteen iyo waxyaabaha ay u qorsheeyeen dadkan iyo cidii la halmaashay dawladda hoose ee Hargeysa noomanay suurtagelin in jawaab waafiya naga siiyaan oo arintani ku aadan mas'uuliyiinta dawladda hoose ee Hargeysa oo xiriir badan la sameeyay